الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد waxaan soo wadnay tafsiirkeena quraanka kariimka ayaan soo wadnay waxaan ku soo dhaxjirnay suuratul muzammil ayaan ku soo dhaxjirnay waxaan soo gaarnay casharkeena maanta uu ka bilaabanaya aayada u dambayso ama aayada 20aad ee suuratul muzammil ayaan soo gaarnay. inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthay al-layli wa nisfahu wa thuluthahu. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay inna rabbaka rabbigaaga naw maxmedow yaclamu wuu og yahay annaka adigu taquumu inaad istaagayso habeenkii adnaa wax ka yar min thuluthay al-layli habeenkii 3 meelood 2 meel wax ka yar inaad istaagayso, wa nisfahu iyo habeenkii nuskiisa, wa thuluthahu iyo habeenkii 3 meelood meel inaad istaagayso, iyo wa taa'ifatun iyo kooxna inay istaagayaan oo min alladhiina kuwii ka ahaaday macaka la jirinkaaga mu'miniinta koox ka mid ahna inay istaagayaan la jirinkaaga. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay inna rabbaka yaclamu rabbigaaga subxaanahu wa tacaala wuu ogyahay naw maxmedow annaka taquumu inaad istaagayso adiga habeenkii oo aad tukanayso. habeenkii nabiga calayhi salaatu wasalaam inuu istaaga ayaa allah subxaanahu wa tacaala uu amray suuradda bilowgeeda. intaas kadib ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ka hadlayaa haddana naw maxmed calayhi salaatu wasalaam iyo asxaabta inay ku dadaali jireen salaada habeenkii la tukada ama qiyaamuleylka inay ku dadaali jireen. intaas kadib ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay marka inna rabbaka rabbigaaga naw maxmedow yaclamu wuu ogyahay. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu ka warqabaa, wuu ogyahay, xaalkaa wuu la socdaa. annaka adigu taquumu inaad istaagayso adnaa wax ka yar min thuluthay al-layli habeenkii 3 meelood 2 meel wax ka yar inaad istaagayso, ama habeenkii 3 qeyb markii loo qeybiyo 2 qeyb inaad istaagayso ama 2 qeyb wax ka yar, iyo wa nisfahu iyo habeenkii nuskiisa inaad istaagayso ama barkiisa, wa thuluthahu iyo habeenkii 3 meelood markii loo qeybiyo 1 meel inaad istaagayso. rabbigaaga subxaanahu wa tacaala wuu ogyahay. iyo wa taa'ifatun iyo koox oo min alladhiina kuwii ka ahaaday macaka la jirinka inay istaagayaan, yacni koox mu'miniinta ka mid ahna inay istaagayaan oo ay kula tukanayaan oo ayagana salaatuleylka ay ku dadaalayaan. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu ogyahay. intaas kadib ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay wallahu ilaahay subxaanahu wa tacaala yuqadiru wuu qadaraa oo wuu jaangooyaa alleyla habeenka iyo wannahaara iyo maalinka. ilaahay subxaanahu wa tacaala asiga ayaa abuuray habeenka iyo maalinka, sidoo kale ilaahay subxaanahu wa tacaala asiga ayaa jaangooyay habeenkii intuu la egyahay iyo saacadihiisa, iyo sidoo kale maalinka intuu la egyahay iyo saacadihiisa. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu qadaray, wuu jaangooyay. sidoo kale ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu qadaray ama uu jaangooyay habeenkii waxyaalaha la qabanayo iyo sidoo kale maalinkii waxyaalaha la qabanayo. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu qadaray, wuu jaangooyay. marka wallahu ilaahay subxaanahu wa tacaala yuqadiru wuu qadaray oo wuu jaangooyay ama wuu qiyaasay alleyla habeenka iyo wannahaara iyo maalinka. ilaahay subxaanahu wa tacaala asiga ayaa qiyaasay oo qadaray. calima wuu ogaaday allah subxaanahu wa tacaala an lan tuxsuuhu in aydan koobi karin hu qiyaamuleylka qiyaamuleylka oo habeenkii dhan la tukanayo in aydan koobi karin oo awood aydan u lahayn. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu ogaaday. fataaba wuu toobad aqbalay allah subxaanahu wa tacaala calaykum dushiina. fataaba bimacnaa ay khafafa calaykum. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu idin fududeeyey oo u khafiifiyey dushiina habeenkii salaada la istaagay. allah subxaanahu wa tacaala wuu khafiifiyey. faqra'uu akhriya maa tayasara wixii fududaada oo min alqur'aani qur-aanka ka ahaaday. ilaahay subxaanahu wa tacaala nabigiisa sala allahu calayhi wasalam iyo mu'miniinta markuu amray
habeenkii inay istaagaan. suuradda bilowgeeda ilaahay subxaanahu wa tacaala waa tii uu ku amray nabiga calayhi salaatu wasalaam yaa ayuha almuzammil qum illeyla ilaa qaliila. waxaa layidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam habeenkii dhan istaag ilaa wax yar mooye, nisfahu habeenka nuskiisa istaag, amaba nuska wax yar ka nusqaame ama ziyaadi qur-aanka adigoo akhrinayo oo kala dhigdhigaayo. marka ilaahay subxaanahu wa tacaala meeshan wuxuu leeyahay ilaahay wuxuu ogaaday habeenkii inaad istaagaysaan oo salaad aad tukanaysaan oo salaatuleylka aad ku dadaalaysaan, qiyaamuleylka aad tukanaysaan, adiga naw maxamed ah iyo mu'miniinta la jirinkaaga ahaaday. ilaahay subxaanahu wa tacaala marka wuxuu ogaaday in aydan koobi karin habeenka qiyaamuleylkiisa, yacni habeenkii dhan inaydan tukan karin. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu ogyahay, waayo maalinkii mashquul ayaad tihiin, arrimihiin ayaad qabsanaysaan, nolol maalmeedkiin ayaad raadsanaysaan, mashquul ayaad tihiin. habeenkii markii la gaaran waad daalantihiin oo waad seexanaysaan. marka waxaa la doonayaa qeybna inaad seexataan, qeybna ilaahay subxaanahu wa tacaala inaad xustaan, laakiin habeenkii dhan ma soo jeedi kartaan oo ma awoodaan, ma koobi kartaan. calima wuu ogaaday allah subxaanahu wa tacaala an lan tuxsuuhu in aydan koobi karin hu qiyaamuleylka oo habeenkii dhan la tukado. fataaba wuu toobad aqbale calaykum dushiin, ilaahi subxaanahu wa tacaala wuu idinka toobad aqbalay, yacni wuu idin fududeeyay, khafiif ayuu idinka dhigay habeenkii salaada la tukanaya. faqra-uu akhriya marka bimacnaa tukada, faqra-uu akhriya maa tayasara wixii fududaada oo min alqur'aani qur'aan ah, yacni habeenkii tukada wixii idin fududaada oo qur'aan ah akhriya. sidoo kalena wixii aad awoodaan oo karaankiina ah tukada, yacni 2 rakac tuko, 3 tuko, 4 tuko, ama hal sac tuko, ama nus sac tuko, ama 2 sac tuko, inta aad awoodid wey. qof walba wixii uu awoodo ayuu tukanaya. marka ilaahi subxaanahu wa tacaala wuu fududeeyay, wuu khafiifiyey. calima wuxuu ogaaday allah subxaanahu wa tacaala an sayakuunu inuu ahaan doono minkum xaaluu idinka mid ahaaday mardaa, yacni mid xanuunsan ama kuwa jirin ama kuwa xanuunsan, wa aakharuuna iyo kuwo kale kuwaasoo yadribuuna oo haddana safraayo fil ardi dhulka dhexdiisa, yabtaquuna xaalo ay raadinayaan min fadli illaahi ilaahi subxaanahu wa tacaala dheeraadsiintiisa, ilaahi subxaanahu wa tacaala fadligiisa. iyo wa aakharuuna iyo kuwo kale kuwaasoo yuqaatiluuna dagaalamayo fii sabiilillaahi ilaahi subxaanahu wa tacaala jidkiisa. faqra-uu akhriya maa tayasara wixii fududaada oo minhu qur-aanka ka ahaaday. ilaahay subxaanahu wa tacaala haddana wuxuu leeyahay salaatuleylkii markii la khafiifiyey oo addoommada uu u fududeeyay allah subxaanahu wa tacaala, ilaahay wuxuu leeyahay calima an sayakuunu, ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ogaaday inay idinka mid yihiin ama inay idinka mid ahaan doonaan minkum idinka xaggiina mardaa, yacni kuwa xanuunsan. dadka mu'miniinta ah qaar baa xanuunsan oo isbitaalo ku jiro ama guriyaasha jiifo, yacni aysan awoodin inay habeenkii dhan ay soo yacni salaatuleyl inay u istaagaan. marka ilaahi subxaanahu wa tacaala mu'miniintu uu u fududeeyo oo qofka asigoo xanuunsan intuu awoodo oo karaankiisa inuu tukado. haddana hadduu uu safar u yahay, iyo wa aakharuuna yadribuuna fil ardi, iyo kuwo kale oo safraayo dhulka dhexdiisa ku safraayo. qofka markii safar uu yahayna oo gurigiis uu ka tago, waxaa laga yaabaa inuusan waqti fiican ama waqti badan ama awood badan inuusan helin. marka ilaahi subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay waxaa idinka mid ah kuwa xanuunsan iyo kuwa safraayo. kuwa safraayana intay awoodaan ha tukadaan ayagana. iyo wa aakharuuna kuwo kale oo yuqaatiluuna dagaalamayo fii sabiilillahi ilaahi jidkiisa, iyo kuwa kale oo mujaahidiin ah oo safka hore ku jiro oo gaalada la dagaalamayo. kuwaasna ayagana habeenkii dhan inay soo jeedaan oo salaad ay u taagnaadaan ma awoodaan, haddana intay awoodaan oo karaankooda ah ayagana ha tukadaan. ilaahi subxaanahu wa tacaala wuu u fududeeyey. faqra-uu akhriya ayuu leeyahy allah subxaanahu wa tacaala maa tayasara wixii fududaada oo minhu qur-aanka xaggiisa ka ahaaday. intaad awoodaan oo karaankiina ah wixii idin fududaada tukada oo qur-aanka akhriya. wa aqiimuu toosiya oo ooga asalaata salaada, wa aatuu bixiya azakaata zakadana bixiya. salaada ooga oo ku dadaala, waa salaada waajibka ah. wa aatu zakaata zakadana bixiya, waa zakada waajibka ah weeye. wa aqridullaha ilaahi subxaanahu wa tacaala amaahiya qardan amaah xasanan oo haddana wanaagsan. ilaahi subxaanahu wa tacaala dartiisana wax u sadaqaysta
oo masaakiinta siiya oo masaakiinta caawiya oo masaakiinta garab qabto ilaahay subxaanahu wa tacaala dartiisa wax ula baxa وأقرضوا الله إلهي سبحانه وتعالى أما هي قرضا أما حسنا أو هدنا وناكسا وما تقدموا وحيات أخر مرستان لأنفسكم نففيالكين أو من خير خير أو وناق تجدوه واتهليسان خير كاس عند الله إلهي سبحانه وتعالى أكتي سايات كهليسان هو أسيقاسو خيرا أو هدنا خير بدن أو أعظم أو هدنا وين بدن أجرا حق أجر أهان واستغفر الله إلهي سبحانه وتعالى الدين بداف ويديستا إن الله إلهي سبحانه وتعالى غفور ومضافد بدن رحيم أو هدنا نحريستا إلهي سبحانه وتعالى صورة وحكو قبقبيي إن صلاة لأوغو لغو دالو زكادنا لبحيو سيدوك الإلهي سبحانه وتعالى أكتيس وحوناكسا إن لحور مرصدو وما تقدموا لأنفسكم إلهي وحولي هاي وحي آد أحور مرستان ففيالكين أو خير تجدوه عند الله إلهي سبحانه وتعالى أكتيس آد كهليسان هو خيرا أسيقو كخير بدن وحي آد لبحضي oo hadana wacadama weynan badan ajran xagga ajir ahaan wax yar hadii aad la baxdo ilaahay subhanahu wa ta'ala dartiis aad ula baxdo ilaahay subhanahu wa ta'ala agtiisa aad ka helaysaa maalinka aakhiro asigoo weynan badan oo hadana khayr badan oo wanaag badan ilaahay subhanahu wa ta'ala intaas kadib wuxuu leeyahay wastaghfirullah ilaahay subhanahu wa ta'ala dambi dhaaf weydiista dambigeena iyo xumaantiina ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu idin dhaafo weydiista إن الله إلهي سبحانه وتعالى غفور ومضى فد بدن الضومدي سؤدعف الدنبياش وذنوبته رحيم وحدنا نحريس بدن إلهي سبحانه وتعالى الضومدي سؤنا حريسته